السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قالي السو دوادا ميل والبا أدونك أكا جوجتين كسو دوادا جانالكا توكل فاميلي هداي تاي مركي كوغو هريساي سبسكرايب كنو سار هدانا لجوغي جرتاينا وكما هسانتا لجوغ هذا إن بدن نالجوغ هنغا تاقين ولا لا عصوب نحالايا ويلكام منكينا وايه اسمرتينينا سو دوادا هرو سو غالا شاهين سو قاتا شاكي شاه أنا شاكي بيان وضع ما أنت بيان أنت إيه سارن إن شاء الله حرام مركا حوجا دالب إن قاع كسيون فهندين حوجا وجع أسكجرو لكن إن شاء الله دل بداف الله نوجا ديجو ولا لي قالي جسور دوادا جنالك مركا وأوبضنا هاي ما شاء الله إذا كان قرأ يا نوسي والدين وكم هسنتين كومنتياش نقروح ذا بدن له ما أنت محيني ودا شمسو ما أنت حان وضع قصة لياب له oo aan jeclaystay inaan nila wadaago anigana aan maqlay aan dhageystay subxaan allah horta Soomaalidu waa wada qiso misdhahdeen walaalayaal saa u joogtid midka kale wuu ka yaabinaya qisadiis hadaa dhageysatid marka live ayaan TikTok live ayaan saarnaa marka gabar ayaa qiso soo gudbisay qisadiisa ula yaabanaaba wiil kale qiso soo gudbiyay oo asiga ku dhacday marka waxaan jeclaystay inaan nila share gareeyo qisadana tan ayuu ku bilaabay wiilka wuxuu dhahay qurbaha ayaan deganahay xaas ayaan leeyahay 3 caruur ayay ii haysaa marka aniga waa iska asxaab badanaa uu dhahay wiilal badanaa iska wada jiray gurigeygaan keeni jiray xaaskeyga qado noo sameey maanta ani saaxiibaday ayaan dhihi jiray qaday noo sameyn jirtay waan baashaali jirnay waan bixi jirnay banooni isla ciyaari jirnay waa dad waaweyn oo isfahmeen oo isbarteen marka wuxuu dhahay wiil kale oo asxaab nahay ayaa wuxuu dhahay wadanka aan joogo qurbaha aan joogo maana wadan kale oo ku dhagan ayuu ganacsi ka bilaabay marka walaal wuxuu dhahay dadka qof kasta maadaama asxaab uu leeyahay qof kasta lama aamini karo waa run dadka si asxaab loo yahay yani lisma aamino qof mooyaane marka wuxuu dhahay adigana waxaa haysid ku soo darso ganacsigan ganacsi fiican waaye wuu kala socdaa adigana ka faa'iideyso bal nagu soo bir ayuu dhahay fikradii ayuu ii soo jeediyay dhahay wiilkii aa dhahaya wiilka kale oo saaxiibkiisa fikrad u soo jeedinayo marka wuxuu dhahay asigana waan ka aqbalay xaaskeyga ayaa u gudbiyay waxaan dhahay ka waran hadii wiilkaas ganacsiga aan share kula noqdo oo aan la shaqeeyo marna aan ku imaado marna dukaankii aan la gabo ka waran markaas waxay tiri waa soo dhaweynaya bas lacag aan ku darsado u dhahay marka qurbaha wadanka aan jooga ma ahan uu dhahay wadan igu dhagan waayo laakiin sas iiga fogeen yani waa ogtahay wadamada qurbaha waa isku fufuran yihiin qofkii oo yaqaano marka wuxuu dhahay wadanka igu dhagan waayo 2 week ama 3 week kadib 3 beri fasax ayaan soo qaadan jiray si ilmahayga iyo xaaskeyga aan waqti la qaato marka ganacsigii aan bilaabo u dhahay maasha Allah ganacsigii uu ii kala kacay u dhahay faa'iido badan aan ka helay marka asxaabtii oo xaaskii iyo caruurtii ugu tagay ee walaalayaal ku warhaaya dumaashadiina iyo caruurta wax alaala wixii markaas u baahato ka caabiya aan dhahay asxaabteedii mid ka mid ah ayuu wuxuu dhahay waxay bilaabeen oo horta asxaabteed inay xaaskeyga igu diraan oo xaaskeyga igu diraan oo ninka wuxuu u baxay mataqaanaa naag kale hoos ka wata anaga asxaab nahay iyo hanana sheegin iyo gabadhii waxay dhahay shaq badan ay ka buuxiyeen markasta aan imaado waji bedel iyo waxa igu soo dhaweysaa oo dhaw farxad igu soo dhaweyso marka wax saa sameeyeen waa asxaabteedu dhahay aniga ma warhaay marka mid aab wuxuu dhahay wuxuu isku dayay inuu la sheekaysto gabadhiina marka waxay bilowday inay aniga ila dagaasho inay ii sheeg adiga waji fiican isiinin taleefanka haddaan ka soo waxta ila dagaasho ay caydo iga qabanin ayay bilowday uu dhahay muddo markay ka soo wareegatay marka waan u imid maxaa kugu dhacay waa isbedeshay saan ganacsigan iyo waxaan u bilaabay maxaa qaldan markaan dhahan waa qaldan tahay waraaqdeedii isii ma ahan wax kale iima hayso uu dhahay waan yaabuu dhahay aniga si kasta waa isku day uu dhahay inaan la heshiiyo iga diiday uu dhahay bataatanba waxaa isiinaysaa waraaqdeyda kuma rabi saas mi ahaa okay aan dhahay uu dhahay waan kala tagnay haddaan kala tagnay 3 ubada ii haysaa guriga waan ka baxay alaabteeda waan qaatay guri kalaan kireystay bas mar walba waan soo wici jiray ilmaha ka waran xaaladooda waa fiican yihiin nabadooda way dhihi jirtay markii dambe heer waxay gaartay inay blog isaarto
oo i wada baloogto Facebook WhatsApp meel walba aan xiriir ani iyada macala koolka xataa waa iga baloogtuu dhah bas anigii ganacsigii waa ii suurtageli weysuu dhah inaan sii wado waa khalbajab ayaa igu soo ziyaaday marka asxaabtiina marba kama shakanin uu dhah markii dambe waxaa maqlay naagtii waxaaskeyga ehadoo kala tagnoo carruurta ii haysa ninkii saaxiibkay ahaa aan la dardaaran inay isguursadaan ayaa maqlow dhah markaasaa waagi iigu bariyuu dhahay waan yaabay marka ninkii isguursadeen aan maqla meelaan wax ka bilaabo ma aqaani naagtii waa kala tagnay meel walba balooga iga saartay waxaan bilaabay marka inaan cidaheeda oo raadiyo aan ku dacbeeyo si ana ilmaheyga aan u arko oo aan la kulmo marka anigana wuxuu dhahay aabbo iska ilmo jecelaan ahay soo asiga sheegayo waa aabbo iska ilmo jecelaan ahayuu dhahay maadaama meel kasta baloog ay iga saartay waxaan isku day u dhahay lambar cusub inaan kasoo waco aan dhaho walaalay ilmaheyga aan rabaa inaan la kulmo ee ilmaheyga isii markaasay tiri haddii mar dambe isoo waxdid waa ku dacweynayaa wallaahi ma dacweyn kartidaan dhahayuu dhahay bas waa iska aamusuu dhahay waxaan sameeyaan garan waaye qof aan la sheergareeyaan garan waaye markii dambe ayadaa isoo wacduu dhahay wiilkaagaa ii sheeg adiga kalxanta meelahan ayaa wax ka gaaray ee saas ula soco okay ma imaan karaa ma arki karaa aan dhahay maya muhiim ma ahan inaa imaatid muhiimadda inaan kuu sheeg keliya waaye ee igu tiri waa igu jartuu dhahay haddana maalmo kadib haddaan waco isla taleefonkii haddana balooga iga saaran dhaho waxaan sameeyaa garan waaye waa iscelin waayuu dhahay gurigiyaan wuxuu dhahay aan tagay gambaleelkiyaa taabtay gambaleelka haddii taabtay ilmo ka mid ah ayaa taleefonka iga qabteen uu dhahay waa ogtiinta guryaha laskama soo galo inta badanaa qurbaha banaankaa la istaagaa waxaa la garaacaa gurigaa rabtid magaciisaa ku qoran waa la garaacaa taleefonkii iga qabteen aabbo miya ahaa waa iga furan waa igu soo orday anigii waa soo galay uu dhahay gurigii anoo dhex taagan hayaanba is arkay uu dhahay waa is ilow anigoo dhan saan ahayaanba garan waayuu dhahay markaasay naagtii waxay bilowday inay qayliso ay booliis iigu wacdo booliiskiyaa imaaday booliiska hadduu imaaday ninkaan ima qabo waan kala tagnay ninkaana i qabo gurigu igu soo dhacay wuu igu dhex dilay beena iga sheegtay uu dhahay markaasaa la i qabtay saas inay la ii qabtay uu dhahay asaa booliiska i wado uu dhahay asaa waxaan soo xirnaa bilooyin uu dhahay haddaan mar dambe eerdaas laguga arko is abtiyu waa lay dhahay uu dhahay okay aan dhahay waa soo baxay waxaan bilaabo uu dhahay inaan shaqo bilaabo oo raadiyo shaqo iima cunto meesuu dhahay aniga dhan konfeesaan ahay waa isku buuqsanahay ilmaheyga aan jeclaa ma arko naagtii ciddaana igu dacweysuu dhahay booliiskii saasuu dhahay haddaa eerdaas laguga arko xabsiyaa tahayaa lay dhahay bas wax allaala waxaan sameeyo ayaan garan waayay familkeedaan wacay familkii haddaan wacay idinkaa meesha isla joogtiin waxaan kaa qaban karna ma lahana igu jawaabeen uu dhahay okay markii dambe waa la ila taliyay inaan maxkamad furto oo maxkamadeedaan furto oo naagti dacweeyo oo ilmihii ani iyadu ay ku qorannaho ii sheeg adiga aan dacwad furo mar allaala markaan dacwaddii inaan bilaabo isku dayb waxaa maqlay u dhahay ilmihii oo la kaxeeyo Soomaali la geeyay ayaa maqlay bas ticket xataa ma awoodin uu dhahay ticketkiya asxaabteyda mid ka mid oo aad u fiicnaa oo arinteeda ogaa ayaa ticket wixii iga bixiyay sidaan Soomaali ku tawiyo dhahay Soomaali hadaan tagayba isla meesha ayaga degan yihiin hadaan tag waa ilmihii waa laga sii waday waxaaba la geeyo dhahay meel kale oo baadiye si aniga aan u arkin waa la ii tashto dhahay bas meesha hadaan tagay caruurtiina dartooda u tagay waan waaye quraana soo saaray familkii waxay dhan isdaji hawaalanin caruurta haday weynaadaan adigayba ku weynaanayaan naagta haday ku xumayso iska joog xataa halaaban anigana wuxuu dhahay kurbaha u bartay anoo yaraa imaaday waa ka soo laabtay hadda wuxuu dhahay gobolkiina waa ka guuray gobol kale ayaa deganahay bal waxaan rabaa uu dhahay naagtan dacwad kale way ii furan tahay inaan ambiil qaatee dacwad kale ma furtaa oo naagtan ma dhaha ilmaheyga Soomaali ku tuurtee ilmaheyga xaq ayaan u leeyahay ambiilkana aniga maskaxdeeda iimaankaygana waa fiican tahay ma waalni ilmaheyga ani iyadoo asla dhalnay ilmihii u baahnaay Soomaaliyana geysay ilmihii dacwad ma u furtaa mise ilmaheyga hadal ma iska gelinayo ma iska daya ilaahay dartiis ma u sabraa uu dhahay bismillah walaalayaal horta nimanka kaliya ma khaldana anigana dumar hadaan nahay yani mid xun weyn ugu jirtaa sida gabadhan oo kale acuudu billah wiilkii ilmihii inay ka xaaranteeday haddana Soomaali markuu tagayna way ka sii fogayso baadiye u rartay suu u arkin waxay ugu tala gashay inuu waasho
marka walaalayaalow wiilkaas maxaa ka dhihi lahaydeen maxaan kula talin lahaydeen aniga shamsa ahaanteeda waxaan dhihi lahaa ilmahaaga saa hadda u sheegtay waa hadal haska gelina ilaahay dartiis u sabar maadaama Soomaali ku joogo haday weynaadaan way ku soo raadinayaan sida hadda aa sheegtay iskaga daa mase aqligaaga la tasho laba rakac tuko maxkamadda aad dacwad furo aniga saasaan kula talin lahaa idinkana talideena waa u muhiim insha Allah waxaan iga tagayaa khayr badan warku waan igu daaliyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي